sheekada wiil dhalinyaro ah oo si joogto ah iskula dhaca ama isugu garaaca buruska sheegayna in uusan wax xanuun ah dareemin. intaan u gudgalin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad na soo boqoto fadlan nagu soo biira mahadsanid. wiilkan 32 jirka ah ee u dhashay dalka Kuuba ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi waxa uu ku soo bandhigaa waxyaabo aan macquul ahayn oo dadka ka yaabiya. waxaana ka mid ah waxyaabaha uu soo bandhigo in uu jirkiisa ku garaaco buris weyn ama uu la dhaco. waxa uu sheegaa in maalin walba kumar ka badan uu buriskan isla dhaco si uu dadka uga gado in uusan wax xanuun ah dareemin. dadkii la kulmay ninkan ayaa sheegay in ay la yaabeen ficilada uu ninkan sameynayo. waxa uuna sheegay in uu ku qanacsan yahay waxa uu sameynayo wax xanuun ahna uusan ku dareemin. ninkan ayaa qabsaday hadal haynta baraha bulshada gaar ahaan warbaahinta dalkiisa Kuuba waxayna sheegeen in ninkan uu yahay nin la yaab leh. tan iyo markii uu soo shacbaxay muuqaal wiilkan dhalinyarada ah oo feeraya gidaar ama derbi. markaasi kadib dadka waxa ay raadiyeen ninkan waxa ayna u kurgaleen in bal xaqiiqo ay tahay waxan iyo in kale. waxayna soo ogaadeen in ninkan waxa uu sameynayo ay run tahay. tan iyo markaasi waxa uu bariisa bulshada gaar ahaan Instagram-kiisa oo ay ku xirneed in ka badan 100,000 oo qof ku soo bandhigi jiray muuqaalo la yaab leh oo uu buruskan si joogto ah isugu garaacayo. waxa uuna sheegay in arintaasi markii dambe uu ka helay lacag iyo magac intaba. wiilkan dhalinyarada ah ayaa warbaahinta u sheegay in uu sameeyo jimicsi joogto ah. waxa uuna goobjoogayaasha u soo daawasho tagaa waxan uu sameynayo marka qaar ay ka codsadaan in ay iyagu tijaabiyaan. waa uuna u fasaxaa in buruska uu gacanta u galiyo jirkiisana ay la dhacaan si ay u dareemaan waxa isaga uu dareemayo oo ah in uu ku faraxsan yahay wax xanuun ahna uusan dareemeyn. dhacdadan ayaa ka yaabisay guud ahaan dadka ku nool dalka Kuuba. sidoo kale waxa ay ka yaabisay dadka isticmaala baraha bulshada gaar ahaan dadka la socda wiilkan dhalinyarada ah ee isaga saaxiibka kula ah bartiisa Instagram-ka.